السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad dunida ka joogtaan oo aniga walaalkii maxamed xasan youtube ka daawanaysaana waa another one tii tacadaadiya cusub tahay soo dhawow subscribe taabo gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada ugu dambeeyay fiidiyoogana like saar waad ku mahadsantihiin la jiristiina iyo la joogistiina sida caadi dhaqanka ahaydna ku soo dhawaada barnaamij aan rabo inaan ku falanqeeyo tijaabi jacaylkaaga hadduu daacad ku yahay iyo haddii kale 5 sano ayay saaxiib la ahayd ugu dambeyn waa ay ku hungowday kadib markii ay ogaatay inuu leeyahay xaas iyo 4 caruur 5 sano kadib ayay ogaatay inuu xaas iyo 4 caruur leeyahay waxa sugeynaa qosolna wuu wataa barnaamijka kadib markii ay ogaatay inuu xaas iyo caruur leeyahay gabadha sidoo noqday dareenkeeda daawade dhameeso adaa yaabi doono ayadoo habaareysa kana habaareysa caruurta uu dhalay ayaad maqli doontaa jacaylkii waa ku kalsoonahay waa jeceshay labadeena daacado isku naayaa gabadhan markay iimaaneysay hididiilo iyo hamiye lahayd kalsooniyay qabtay ay ku qabtay jacaylkeeda waxay lahayd waa uu ku sheegi doonaa maxaa yeelay 5 sano waqti yar ma ahan 5 sano ay xiriir saaxiibtinimo la lahayd qof 5 sano xiriir la lahaydna de waxa isleedahay adaa iskale qofkan qalbigiisa adaa degan yaaba laandheero banaankeed ku dhacday tahay yaaba ka qaadan kara laakiin gabadhan wixii qabsaday adaa la yaabi doona iska xaqiijilay kulata maadaama aan is aroosan rabno oo 5 sano xiriirkeen u socday waxaan rabaa oo guur ay xaaladda imaatay waxaan rabaa inaan tijaabiyo inuu daacad u yahay in kaleeto gabagaban mareyniyay tiri ama gabagaban mareynaa xilligii guurka soo dhow inaa is aroosno aynu balantu tahay marka arooska ka hor waa iska tijaabinaa waxa uu ii sheegayo inay tahay dhab iyo inay tahay dhalanteed gabadhu ma dhabay heli doontaa mise dhalanteed daawade marka gabadha aad iska ilooni adiga horta xiriir leedahay labadeena inaga dhaxaysaa xiriir leedahay gabadhan iga jeclaa ani xiriir waa leeyahay laakiin xaaskayga xiriir leeyahay durbaba ninkii la wacay waa uu qabtay iswareesi isxaal weydiin kadib wuxuu sheegay inuu xiriir leeyahay laakiin xiriirka wuxuu la leeyahay ay tahay xaaskiisa gabadha meesha taaganna waa saaxiibtiisa ilaa xaaskiisa ma aha wiish baa meeshii ku yeeray waraa jiri doonee wiish kale hayeeraa ka dhacday dareenkaaga siduu noqon lahaa adigoo 5 sano waqti iyo waayo uuraayay xiriir daacadaa waday ugu dambeyn haddii lagu yiraahdo xaasaan leeyahay ama saaxiib kalaan leeyahay bal ka waran sidee noqon lahayd jirka siduu ku noqon lahaa hadday laabto kaa jeedo jirka siduu ku noqon lahaa abbaaya maaboowe magaca la marba inaad adi sheegtaa laga rabaa jacaylka magaceeda inaad noo sheegtid arnaa su'aasha saas waa barnaamijka iqlo waxay gelin nololow okay la hadal bal wuxuu yiri waxaa laga rabaa saaxiibtaada inaad adi magaceeda noo sheegto qofka ay tahay markaas wuxuu leeyahay war walaalow aniga dhiiqa lugaha ii gelinin dhiiqo umadii dhan dhiiqa inay lugaha gashatay ka cararoosa oo aniga aan kamid ahay dhiiqa lama rabo dhiiqa ka carar aboo dhiiqa lugaha gashanin dhiiqa waa soo uree hello ma calaa isha dhankaada kugu yaalay goorma xaas in alla maxad uu sheegaysay yaa way adi walaalo waryaawada ka dhax arkaysaa niyo khiyaano badnidaadi laakiin maxaa sabab ka yihiin gabadha durbo si degan uma hadlin walaa nacala sheedaanka ku yaalay tiri khiyaano badnida adiga yaa asina xutaan yaa waa walaalo yaa waad walaalooda ka dhax arkay dhahday sababtoo gabadha jaama degan warkeeda ileen qof maseeri waa taqaan qof maseeri ma miir leh qof maseeri waa waalaya qof maseeri miir ma leh maya walaalo ma khiyaani badnaani maxaa jiro fiiri nin xaas wara dhageyso nin xaaskiisa khiyaanay naa kale wuxuu meel laakiin maxaad uu sheegaysaa ani kaagama daba dhareeray waan ka hari lahaay khiyaano lamiyo yiri laakiin idan waxay taagantaa maxaa iigu sheegi weyse ani ma ka daba dhareeri lahayn waaba iska kaal fasixi lahaa sababtoo qof khiyaanaya taa qof khiyaanina ma joogin waaba ka agtagi lahayn
laakiin maxaa iigu sheegi weysay oo iigu qarisay laakiin daawade haddaa qosol arkee maxaa qosli doona maya ani xaaskayga ma qiyaamin waad uga darantay waad khiyaantay maxaa ani inta isla sheekaysanayna maxaad iigu sheegi weysay ayaan miyaadi haa ayaan waay maxaa laakiin xaaskaaga waa khiyaantay tiri sababtoo ah intaan ani adiga wada hadlayna maxaa iigu sheegi weysay qofka ee tahay xataa moog hadduu codkeeda fahmay ayaan miyahaa ayaan waaye tiri xitaa macnaha qofkee tahay asi maba fahamsanaa ayadana 5 sano kula go'saneed ayadoo teenager ah oo iskoolee ah uu gabadhaani ku camirtay ilaa up to now na jacayl beenuu ku shubay ka waran arbalaayo ku salaamis kuma ogeena kugu kalsoonay maxaa dhacay maya kalsooni ma jirta 5 sano ani adiga wada sheekaysanine nacala fiir anoo yar adaa isoo damacda anoo yar ilaa waagana kula sheekaysanayo waa maxay marka waxan 4 cunuga ii joogaan 3 wiil iyo 1 gabar allaha kaa qaado kulli baaba aan ku ogaan nacradiina nacrada laga ahayn bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wallahi billahi kali laabi u hagaartanta wallahi sababtoo ah wuu ka nixiyey qofka haddaa ka nixisidna khatarteeda leedahay wuxuu leeyahay 4 caruura ii joogta baaba aan ku ogaayay tiri iyo balow inuu wallahi billahi tallahi waa laisku yimid barnaamijka tijaabi jaceylkaaga hadduu dhab ku yahay iyo hadduu daacad inuu ku yahay iyo inuusan daacad ku ahayn waa lagu kala baxay wallahi been badan way dhammaatay waa la kala baxaa ciise fiiri nolol khayr badan aan ku rajeynaa ciise bidiin waa muusa bidiin haya isku kaysoo dhisan laakiin war iskuma ka dhisaaniyo waa aniga gabar 15 jir aan dhawankeyga dhawan dhalay aduna adoo dhow ii dhareereysay aan ku arkin wallahi billahi tallahi gabadha waa gabar waxay tiri adi oo iga daba dhareeraya aan ku arkin dhawankeyga dhawan oo dhalay tiri anaa 15 jir ah waliba waxaa aayay tiri xabatulloos isku dhuuq ah gabadha uu ka tagay desay oo egtaa abo xalwa loo egyahay naag wax isma dheer soo ma garanaysid waxay naagtaada qabtaa aan qabin صح ay dhawankaada isku gad walaalo ish waro khayr badan aan ku rajeynaniyo hadana blogan ku saaraya blogi saar mar hore aan ku saaro blog lambar kale iga soo wacday moogi la ilaha illa allah wallahi gabadhu waxay tiri maxay naagtaada qabtaa oo aniga aan qabin ii sheeg ya waa runteed naagtaada maxay qabtaa oo gabadha ay qabin ya marka dheesid naagan qabaay 4 cunug naagtaada waxay qabtay gabadhan qabin maxay tahay waxay kale tiri bal asna wuxuu dhabankaaga isku gaduweer dhabankaaga waryaa dhabankaaga quruxdaada ha ku deeqdo iyada fuul bloga ku saaro wuxuu yiri mar horan baan blog ku saaray adaa meel kale iga soo wacay ar maxaa la isku daadi khiyaano videogan wallahi billahi tallahi arartu wixii iga yaabiyo oo anigaba iga yaabiyo reaction ka bixiyaa si idinkana u sii aragtiin war wixii la gaadaayo banaanka u soo baxa oo u jeedin lugooyadii way soo afjarantay 5 sano wallahi 5 sano ciyaar ma ahan howlo badan iyo riyooyin badan lagu rumeyn karaa waqti badan waa 5 sano waqti badan waa si ku ogaan weysay 5 sano gabar nin 4 caruur iyo xaas leh si ku ogaan weysay 5 sano kadib videogan hadaa ka heshay like saar si share gareetani kulantigeena